habar jeclo iyo salaadiintu waxay xukuumadda Somaliland u soo jeedinaysaa inay joojiso amarkii dagaalka ee ay ciidamada ku amartay xalay oo ay taariikhdu ahayd 12 bishii August nabadana ay fursad siiso waxaanu aragnaa hawshu inay tahay taayadii hadday nabadu khalqasho qof walba gurigiisa ugu galaysa saas darteed ma aqbali karayno cidnaba ka yeeli mayno talada iyada iyo go'aanka iyaga iyo qorshaha iyaga ka yeelanayna wallaahi cidnaba ka yeeli mayno inay nabadda ku ciyaarto inuu reer ku ciyaaro iyo inay dawladdu ku ciyaarto laakiin cid walba nabadaan kula shaqeynayna waa qodob weey waxaanu ugu baaqaynaa dawladdu iyada dadka aabe iyo hooyo waa iyada ayaa wadanka ka mas'uula iyaga ayaa mucaaradka iyo muxaafidka mid walba ka mas'uula wixii halkaa loo sii dhaafaa oo wixii shalay dhacay ka daba taga waa ayaan daro keeni karta inay xaaladdu faraheena dhaafto waxa halkan isugu yimid salaadiintii beelweynta habar jeclo iyo guddidii guud ee beelweynta habar jeclo waxaana isugu yimaadeen in ay baaq nabadeed ka soo jeediyaan dhacdadii shalayto ka dhacday gacan libaax waxaana baaqaas soo jeedinaya oo akhriyaya Cabdilaahi Yuusuf Gubadle afayeenka guddida guud ee beelweynta habar jeclo baaq maanta ay taariikhdu tahay 12 bishii 8 2023 annagoo ah salaadiinta iyo guddida guud ee beelaha habar jeclo waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka waxaanu ugu baaqaynaa xabad joojin degdeg ah ugu horeyn qodobka koobaad waxaanu tiiraanyada u diraynaa eheladii qaraabadii iyo asxaabtii iyo qaranka Somaliland ee ay ka baxeen askartii ku geeriyootay dhacdadii xanuunka badnayd ee ka dhacday go'da yar shalay oo taariikhdu ahayd 12 bishii August waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto intii ku dhaawacantayna uu u boogadhado labo guddida habar jeclo iyo salaadiintu waxay xukuumadda Somaliland u soo jeedinaysaa inay joojiso amarkii dagaalka ee ay ciidamada ku amartay xalay oo ay taariikhdu ahayd 12 bishii August nabadana ay fursad siiso isna xakamayso saddex waxaanu ugu baaqaynaa beesha garxajis inay si degdeg ah oo bilaa shuruuda inamada hubaysan ee buurta jooga ay wax uga qabtaan isla markaana ay ka keenaan xabad joojin degdeg ah afar waxaanu diyaar u nahay inaanu hormuud ka noqonno wax ka qabashada xaaladda nabadgelyo darro iyo siyaasadeed ee dalka ka taagan waxaan soo dhawaynaynaa cid kasta oo arrintaa nagala qayb galaysa shan waxaanu ugu baaqaynaa qurba joogta iyo qolqol joogta hurinaysa colaadda iyo cunfiga iyo qabyaaladda inay Ilaahay ka cabsadaan oo ay joojiyaan kala qaybinta bulshada iyo kicinta dadweynaha waa kugu dhimay oo ka dhimay weeye annagu waxaanu soo jeedinaynaa hadday dawladda tahay iyo hadday garxajis tahay iyo hadday namada tahay iyo hadday qurba joog tahay iyo hadday qolqol joog tahay dhammaanteen inaynu u wada jeesano dhinaca nabadda oo aynu u wada jeesano dhinaca xabad joojinta oo aynu u wada jeesano dhinaca walaaltinimada iyo ummadda isu keenkeedii inaynu u wada jeesano maanta halkaa waxa inagu yimi hadduu yahay ka wax dilay isagu ka dhintay hadduu yahay ka dhintay inagu inaga dhintay wax aynu ka faa'iidnay oo halkaa faa'iido ah oo ka soo baxaya magacii ma jiraan wixii dambeenu geysanaana waa khasaare intaa ka badan oo ka sii culus weeye waxaanu anagu doonaynaa in cid kastoo arrintaasi khusaysaa ay noo dhaga nuglaato oo ay fursadna siiso
oo aanu nabadii sidii looga shaqayn lahaa baanu u abaabulanahay u kacnaye in ay u diyaar garoobaan iyaguna sidee noogala shaqayn lahaayeen arintaasaanu cid walba ka doonaynaa haddii ilaahay ka dhigo waa fursad weyn fursadda ayaan la dayicin cid kasta oo kaleeto oo arintaa noogu imanaysa ama waxay ahayd toy nala garab qabanaysa ama nagu raacaysana diyaar baanu nahay waayo nabadgelya la doonayaa waxaa naga go'an haddaanu nahay beesha habar jeclo inaanu guntiga u xidhanno wax ka qabashada arrinta ka soo cusboonaasay dalka taas oo ah mid waajib nagu ah cid kasta hadday tahay dawlad iyo hadday tahay jabhad iyo hadday tahay beel cid kasta oo arrintaa wada waxaanu si naxariis iyo xushmad looga codsanaynaa inay u dhaga jilicsanaadaan baaqayaga iyo talooyinka iyaga inay u dhaga jilicsanaadaan ayaanu aad iyo aad uga codsanaynaa sidii dadkii hore sheegay waxaanu tacsi u diraynaa dhammaan dadka reer Somaliland dadkii ku dhaawacmay iyo kuwii ku geeriyooday dhammaantoodba waxaanu leenahay walaalayaal maanta waxa la joogaa maalin aynu ilaashanayno nabadeena nabad baynu haysanaa nabad baynu ku fadhinaa 32 sano aynu wadnay maanta waxaynu u guntanaynaa inaan nabadeenu aanay dhaawacamin cid kasta mar labaad waxaan ku celinayaa cid kasta oo arrintaas khusayso oo nagala qayb qaadanaysa waxaanu ku soo dhaweynaynaa inaynu gula soo dhawaadaan hadday tahay madax dhaqameed iyo hadday tahay siyaasiyiin iyo hadday tahay mudakar iyo hadday tahay golayaal cid kasta oo nagala qayb qaadanaysa waa ku soo dhaweynaynaa ma aha oo baaqan quraanu ku sii daynayno arrinta waxaanu dhex gelaynaa arrinta oo hadda laga bilaabo aanan meel uga waabanaynin oo aanu dhex gelaynaa waligan waxa layna oran jiray dadkaas isma xukumi karaan baa layna oran jiray laakiin markii 30 sano ee dhowr ay noqotay wax dalka nimankaas un baaba wax dawladnimo garanaya iyo aqoon leh ayaa makhluuqu intii dambe uu ku sheekaysanayay tanna maantana insha Allah waligood way dhici jirtay markaynu soo nimaadno weyn xalili jiray aynu soo nimaadno oo xalilo isku mid ay ka noqono aqliguna ha shaqeeyo inta dantu inoo tahayna waa inta insha Allah biidnillaahi alkariim ilaahayna aqbal buu inooga dhigayaa wadanku cibaada taalla lacag baa taalla nolol baa taalla dawladnimo taalla barwaaqa taalla waxaasi waa nimcooyinka ilaahay diin baa taalla haddii colaadi ka dhacdo waxaasoo dhan bay kharibaysaa saas darteed waa in ninka waxgaradka ahayna uu nabadda siiyaa waxa ay mudan tahay oo waqtigiisa iyo maalkiisaba u huraa ninka aan qofka aan waxgaradka ahaynna inaynu ka qabanno ayaa dhammaanteen inala gudboon oo aynu ka celinno nabadda inuu xumeeyo taas waa iga dardaaran guud kelmadda ku xigtaa habar jeclo beelaha la yidhaahaa sida la idiin sheegay waa soo diyaar garoobeen hawsha inay galaan bayna u soo diyaar garoobeen waxaanu aragnaa hawshu inay tahay taayadii hadday nabaddu khalkhasho qof walba gurigiisay ugu gelaysaa saas darteed ma aqbali karayno cidnaba ka yeeli mayno taladayada iyo go'aankayaga iyo qorshahayagaanu ka yeelanaynaa wallaahi cidnaba ka yeeli mayno inay nabadda ku ciyaarto inuu reer ku ciyaaro iyo inay dawladdu ku ciyaarto laakiin cid walba nabaddaanu kula shaqaynayna waa qodob wey waxaanuna ugu baaqaynaa dawladdu iyadaa dadka aabbe iyo hooyo u ah iyada ayaa waddanka ka mas-uula iyaga ayaa mucaaradka iyo muxaafidka mid walba ka mas-uula wixii halkaa loo sii dhaafaa oo wixii shalay dhacay ka daba tagaa waa ayaan darro keeni karta inay xaaladdu faraheena dhaafto waxaan leeyahay dawladda idinku amarkaa ciidanka siiseen la noqda idinku
u arka kuwa ilmaadeeradood laayay iyadoo aan laba caddayn karay waxay ugu baxeen buurta u baxay u arka dad aan garaadkoodu ku filayn joojiya ciidanka joojiya waxaan idinka doonaynaa inaa xabadda joojisaan madax iyo ummad tanaasul laga waayay waa ummaday guurtinimadeedu gubatay waxaynu ahay guurti reer Somaliland dad guurtiya oo isu tanaasula oo markay arrintu adkaato qaarkood ka tagaan waxaan leeyahay teeniyay guuri ilaahay baa inagu manaystay isu tanaasulkii iyo in wax laga tago iyagoo waddanka iyo ummadda iyo danta la dhowrayo aad baynu ilaahayna ugu mahadinaynaa ilaahay hore inoo waafajay iminkana yay guurin baan leeyahay kelmadahaasaan ku soo koobayaa waxaan codsanayaa inay cid waliba ila waa wada leenahay taladii isugu nimi marar badan baanu talinayoo aanu wax ka tirsanay inaan talo wax tari lahayn laga qaadan waayay ya maantana waxaanu diyaar u nahay in aan wax alla wixii dani ku jirto waddanka wadana dawladnimadeenu ay ku dhismaysay wadana